asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. arrintan waa arrin caafimaad oo aan doonayno inaan wax badan aan iska weydaarsano. markii aan aqrin badan ku sameeyey kadib ayaana go'aansaday inaan idinla wadaago si dadka kale ay kaga faa'iidaystaan jawaabta su'aashan. maalmahan dadku waxay si ka fudud si kasta oo hore ay uga hadlaan arrimaha la xidhiira galmada. si kastaba ha ahaatee, dadka mararka qaarkood way ka weji gabxaan inay ka hadlaan galmada iyo uurka. waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka qabsato inay su'aalo ku saabsan arrimahan ay la yimaadaan oo ay weydiiyaan dhakhtarkooda ama kalkaalisooyinkooda. sidoo kale haweenka iyo raggoba inta badan cabsidooda iyaga ayaa isku qarsada. haddii kani uu yahay ilmahaagii ugu horreeyey, waxaa laga yaabaa inaad dareemto daal, niyad kacsanaan, farxad, diiqo ama murugo, rajo, cabsi, hooyanimo iyo qurux, lur iyo soo jiidasho la'aan. aabbuhu dhinaca kale waxaa laga yaabaa inuu dareemo inuu ku faano inuu ilmo aabbo u noqdo ama uu ka welwelo mas-uuliyado cusub oo soo wajahaya. waxaa laga yaabaa inuu dareemo inuu adiga iyo ilmahaba kobciyo, difaacna uu idiin noqdo, ama uu ka masayro culaysaaridaada uurka cusub. isbeddeladan dabiiciga ah waxaa laga yaabaa inay saameeyaan sida uu midkiinba midka kaleenta uu ka dareemayo iyo rabitaanka isu imaanshaha. shayga ugu muhiimsan ma aha waxa aad dareemaysid iyo sida aad u malaynaysid inuu u xun yahay, ee waa isla wadaagidda dareemahaas. sidaan ayaad ku samayn kartaa isbeddello si xiriirkaada jamaac ee isu imaanshaha labadiinaba ugu yeeshaan mid labadiina dhankiinna uu aad ugu wanaagsanaado. muuqaalkeenna waxaan kaga hadlaynaa su'aalo dad badan laga yaaba inay isweydiinayaan oo ah xiriirka saamaynta uu galmada uu ku yeelan karo xilliga uurka. su'aalaha dhiba haweenka uurka leh: miyay rabitaanadaydu jamaaca ay noqonayaan kuwo yar wakhtiga uurka? jawaabtu waxay tahay sidan: ma jiraan laba haween ah oo dareemo si isku mid ah wakhtiga uurka. haweenku badankood uuraysiga ma beddelo xiisayntooda dhanka jamaaca ah. haweenka qaarkood xakamaynta galmadu waxay u ahayd carqalad, isla markaana waxaa laga yaabaa inuu uuraysigu u yahay wakhti xorriyad. wakhtiyo dhowr ah haweenka qaarkood ayaa laga yaabaa inay dareemaan inay lumiyaan qaabkooda iyo sidoo kale siday u egyihiin xilliyada ay uurka leeyihiin. qaar ayaa laga yaabaa inay ka fogaadaan isu imaanshaha iyaga oo dareemaya rabitaanka oo aad u yar. kuwo kale ayaa laga yaabaa inay doonayaan isu imaanshaha iyaga oo lamaanahooda ay uga helaan dib u xaqiijinta inuu weli uu jecel yahay, waxaynay u arkaan mid soo jiidasho leh. haddii aadan xiise u haynin arrintan, kala hadal lamaanahaaga. waxaa laga yaabaa in lamaanahaagu ay ku adag tahay inuu fahmo haddii aadan kala hadlin. miyay galmadu wax u dhimi kartaa ilmaha? suuragal ma ahan in ilmaha ku jira ilmagaleenka wax loogu dhimo isu imaanshaha labada ruux. biyaha uu ilmaha ku dhex sabaynayo, xoogka biyaha celiya, caloosha, derbiga uu ku jiro iyo lafaha sinta ayaa ka shaqeeya inay ilmaha ka dhowraan in la dhaawaco. haddii isu imaanshaha adiga iyo saaxiibka ama saaxiibta ay lur kugu hayso, fadlan kala hadal dhakhtarkaaga. haddii aan lahaa taariikh dhicis, weli jamaac ma sii samayn karaa? haddii aad lahayd uur dhicisoobe, waa in aadan jamaac samaynin 3 bilood ee ugu horraysa ee uurkaaga. dhakhtarkaaga ayaa kuu sheegi doonaa in aad raacin baabuur kackacaya ama duulduulaya, ama inaadan ka qayb qaadan howlo jir ahaaneed oo waaweyn ama jirdhis ah. xanibaadan ayaa waxa ay mandheerta ka caawinaysaa in ay si isku filan ay ugu kobacdo si markaasi ay uuraysi guul ah oo mar kale uu u dhaco. aad ayay u adag tahay inaan lamaanahayga kala hadlo sida aan dareysanahay. mararka qaarkood ragga qaarkii jir ahaan may damcaan arrintan wakhtiga uurka lamaanahooda. badanaa dareemuhu waa iska meel gaar, waa inaana loo arag diidmo. lamaanahaadu waxaa laga yaabaa inuu qabo walaac kale oo xoogaa dhibaatooyin kale uu dareemayo. waxaa laga yaabaa inaad ka welwelsan tahay in laga yaabo in ilmahaada ay waxyeeloobaan. ilmuhu si wanaagsan ayay u dhowrsan yihiin, islamarkaana haraatida iyo rogadaba shaqo kuma lahan. haraatida ilmuhu waxaa laga yaabaa inay ku xasuusiso doorka lamaanahaagu iyo sida hooyo oo kale. waxaa laga yaabaa inay idin caawiso inaad isku daydaan boos kale si markaas aadnaan u dareemin dhaqdhaqaaqa ilmaha. warbixintan oo ahayd su'aal waxaa nala wadaagtay mid ka mid a daawadayaasha barteeda YouTube-ka oo lagu magacaabo Naciima Cali. waxay sheegtay inay ku sugan tahay Boosaaso.